waxaan kaga hadli doonaa ajandayaal ay kaga mid yihiin kow inaan iska war xog wareysano xaaladda abaartu maanta taagan tahay taas oo warbixin naga siin doono gudoomiyaha gobolka iyo xafiiska NERAD iyo guddida abaaraha waxa kale oo idin noogu xigi doonta hadii la raahdo hay'adaha ka howlgala gobolka Awdal oo iyaguna bixin doona warbixinta ku saabsan howlgalka ama waxa intervention ay hadda ka wadaan gobolka iyo waxa uu qorsheysan si loo wax looga qabto abaartan baahsan ee gobolka iyo Soomaaliland ka jirta kuleba sidaad la socotaan gobolkeenu joognay Awdal waxa ku soo guuray dad ay soo barakaceen abaaraha oo ka soo guuray gobolada galbeed bariga oo u shisheysay ilaa imika dadkii nala joogo gobolka Togdheer oo duweyno isna gobolka Daadmareera gobolkan Hawd Hargeysa dad inta ka soo barakacay ayaa jooga goboladan galbeedka qaasatan gobolkan Awdal dadkaasi markii hore waxa ku soo horeeyeen magaalooyinka magaalo cad iyo Dila hadeertaan waxay soo gaarayaan ilaa iyo xaggan Itoobiya u galeen la faysay iminkana riboodkii ugu dambeeyay kala qaadanayna guddida abaaraha heer gobol waxay noqonaysaa iminka in xaggan xeebta ay ilaa iyo Lughaya dadkaas iminka si firqsayn shal ugu dambeysay 40 qoys ayaa gaaray sidoo noo soo sheegay maayarka magaaladan Qolujeed marka gobolka guud ahaan iminka waxaad moodaa in dadkii soo barakacay ay ku dhayihiin waxaan idin sheegaynaa anagu intii abaaru jireen runtii tirada waxa ka warami doonaan u deynaya guddida abaaraha heer gobol xogeeyoodii iyo gudoomiyada way nala jooga iyo xubnihi kalaba iyaga inta qof details idin sheegi doona laakiin tan iyo dadka maalintii ay dadkaasi nagu bilowdeen waxaanu ka geysanay gobol ahaan iyo guddi ahaan iyo dadweyne ahaan reer Awdal hadaan nahay waxaanu ka geysanay runtii gacan waxaanu ka dagaalanay dadkaasi inay ku maaragtay dhex qadaan waxyaabaha ugu daran dadka haystay waxay ahayd hoga oo deegaanka ay yimaadeen cimiladiisa aan la aqoon oo dhaxanta maaragtay ugu darantaa ilaa maanta oo laga yaabo qoyska markii bastalas iyo qoyskii minoo 5 iyo 6 iyo wax ka kooban yahay wada heli karin laakiin dhowr jeer aanu ku celcelinay inaan qaybino bastayaal waxa jira xitaa hoogi kale ma haysta maaragtay dhar dadweynaha dhowr iyo 10 gaari ilaa ay ururiyeen oo dhar dadka Boorame marka taa laga tago waxa kale oo gacan ka geysanay dhan gobolka nahay dhinacyada caafimaadka xoolaha iyo dadkaba gubanka hoosaan ka soo hoyday marka Lughaya Garbadadar Gaarisa ilaa inta dadku wuxuu joogaa si ciriiri ah u badnaadaan dadka geelo kumayaal geela ayaa taagan dadku dad biyo waa la haystaa laakiin wax hantiya oo dadkaasi maanta haystaan wax gacan oo gaarina ma jiraan haddii aan warbixin yar ka bixiyo gobolka Awdal iyo dadka ku soo guuray horta waxa weeye dad aad u badan oo dhulka garanayn cimilada garanayn xaggay u jeedaan garanayn baa soo guuray waxa weeye gaadhi baa sida halkaan baa lagu daadinayaa kaasi kolka waxoogaa xooliyo cunayaan kookii kalena la hadlayaa dadkaas soo guuray waa gorofleyda malaha dadkani ma garanayaane waa dad iyagu dadkii xoolaha jirayay oo kaliya xasasinta badan ma wataan xoolahoogu run ahaantii waa dad xoolo badan wata oo reerku wuxuu wataa 200 oo neef 400 oo neef gaadhiga lagu soo rarayo intaasaa ku dhimanaysa iyo qaranka guud ahaanba dalka oo saameysay meero iyo gobollo badan oo kala duwan gobollada qaarna si toos ah u saameysay oo waxa weeye de gobollada abaartu ka dhacday qaarkoodna si dadban bay u saameysay oo gobollada abaartu ka dhacday dadkii ka soo barakacay ayaa ku soo barakacay oo mooday baad iyo biyo meel ka helayaan qarankuna gurmad buu ku jiray ilaa bilowgii abaarta oo waqtigii la sheegay madaxweynuhu ku dhawaaqay qayradhaanta abaareed bishii Oktoobar bartankeedii sidaa la tilmaamay abaartu sideedaba waxay si xooga u saameysay 4 gobol bari oo Saaxil iyo Togdheer iyo Sanaag iyo Sool laakiin waxaad moodaa in dadkii markii goboladoodii saameysay inay dadkii meeshii ay bidayeen miciin
biyo baadba waad ka heli kartaan idinkii xoolihiinuba is lahaayeen ay usoo barakaceen qaar badan oo ka mid ahi qaar badan bari bay u baxeen qaar badan galbeed bay usoo baxeen oo waxay yimaadeen goboladan aanu joogno awdal iyo gabiley awdal sidaa la tilmaamay waxaa lagu qiyaasaa dad ilaa 8,000 oo qoysa inay yimaadeen meelaha qaarna waa laga badinayaa mararka qaarna waa laga yaabaa in laga yareeyo laakiin average-ka ilaa 8,000 oo qoys baa yimid dadkaasi sida la tilmaamay muddadii hore oo dhan waxay gacan ka helayeen dadka lookalka ama dadka goboladan joogay ku soo barakaceen oo iyagu gacan qabtay oo waxay helayeen iyo wixii awoodoodaaba ku caawinayay laakiin waxaad moodaa iminka inay tabartoodii soo yaraato oo labadiisa soo gaarayaanba oo baadkiina soo yaraaday biyihii soo yaraanayaan awooddii dad ay ku hayn karayeen ay soo yaraatay sidaa awgeed waxaa muhiima in markaa qayradhaan la diro guddiga abaara heer qaran iyagoo arrintaa ka duulay kolay dhowaan deeqihii soo gaadhayay oo ugu dambeysay deeqdii shirkadda Telesom bixisay oo $500,000 ahayd waxay uga qaybiyeen $100,000 oo si gaar ah ugu gooyeen gobolada galbeedka oo loogu talagalay in raashin lagu iibiyo iyo ilaa 300 oo booyadood oo biyo ah oo isna goboladan loogu talagalay kolay awdal waxa soo gaaray $50,000 oo 100,000 ka mid ah iyo 140 booyadood oo biyo ah oo loogu talagalay meelahan biyaha lahayn ay dadkaasi joogaan in lagu caawiyo muhiimaddu waxa weeye waxaynu ka waramayno iyo baahida inta leeg ilaahay subhanahu wa ta'ala wax ka qaban kara waxaynu inagu qaban karnaa way kooban tahay laakiin waxa leenooga baahan yahay in la iscaawiyo oo bulshadu iscaawiso gobolka awdal waxa soo galay xoolo fara badan oo ka soo qaxay dhulkii goboladii abaaru ka dhaceen xoolahaasi xeeb iyo ugadba way soo galeen markaa muddo 8 cishaa waxaanu ka shaqaynaynay magaalo cadmad booni banka intaasaanu ka shaqaynaynay annagoo ka socno waaxda caafimaadka jaamacadda Camuud kaambeynkii u dambeysay iyadoo aan wakiilanayno oo uu hogaaminayo isku duwaa caafimaadka ee gobolka iyo barasaabkuba waxaanu kaambeyn ku qaadnay dadkii soo guurtada ahaa ee ku noolaa eriyadan dila area intaa waxa noo dheeraa marka hore sahamis baan ku sameynay lagu saaminayay dadka xaaladahooga eriyooyinka ay u badan yihiin meelaha ay ku kala maxaadana dhibaatooyinka caafimaad haysta markaan warbixintaas soo gudbinay ka bacdi aan la wadaagnay maamulka heer gobol iyo waaxyada ay khusayso waxaan isla garanay in wixii waaxda abaaraha aan la hadalno waxay hayaan ay geeyaan caafimaadka wixii aan haynaan ka qaadno annaguna markaasi ay ka qayb galaan tadawacnimo macallimiinteedii ardaydeedu